الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى شريعة قيمها بدن وحوس ودجيي إن بني آدم كالتهذيبيه إن لا ترفع تره إن لا هجاتشيه in kor loo qaado in laga kor qaado waxyaalaha uu ku abuuran yahay iyo dhaqamada xunxun in darajaad sare la gaarsiiyo qiimo wanaagsan loo yeelo adduunkiisa iyo aakhiradiisa. macaanida waxaa tilmaamaya nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wuxuu yidhi waxaa la ii soo saaray oo la ii soo diray inaan akhlaaqda teeda wanaagsan dhammaystiro. muhiimadda la ii soo diray aadamaha inaan dhaqanka xun ka saaro oo ka wanaagsan u saaro waayo. sidaas daraaddeed buu nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu bixiyey tacaaliim aada u sarraysa oo aadamaha kor u qaadaysa oo waxyaalo fara badan iyo dhaqamo uu ku dheggan yahay kor uga saaraysa oo qiimo u yeelaysa. waxaa ka mid a dhaqamadaasi midka ku yimid ama kuwa ku yimid xadiidka uu soo saaray imaam axmed caleyh raxmatullaahi qaar ka mid a, qaarna uu soo saaray ibnu samaak fii juz-ihi abu camr ibnu samaak, oo uu laga warinayo saxaabiga nebiga sal alla alay wasalam saxaabadiisa ka mid ahaa cuqbat bni caamir. wuxuu leeyahy cuqba nebigaan la kulmay sala allahu calayhi waaalih wasalam. markaasuu wuxuu igu yidhi cuqbow, ciddii ku goysa xidhiidhi, ciddii ku qadisana sii, ciddii ku dulmidana cafi, ciddii ku xumaysana wanaaji, xaqana ku hadal, naftaada korkeedaba ha ahaadee. waa macaani waaweyn. xidhiidhi cidda ku goysa buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam. dad qaraabo ah, ehelkaaga ah, ku mudan ood mudan tahay, xaq aad ku leedahoo kugu leh ayaa ku goynaya. nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ha goynin. cid suxbo iyo saaxiibnimo idinka dhexayso, cid darisnimo iyo jiwaar idinka dhexeeyo, ciddii aad ka mudnayd inuu ku xidhiidhiyo ku gooyaa ha ka ficil la qaadanin, ha ugu abaalgudin wuxuu kugu sameeyey oo kale. xidhiidhi buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam isagoo ku goynaya. lianna middaasaa waxay tahay xidhiidhinta rasmiga waa taa. fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan nebigeennu inuu yidhi sal alla alay wasalam, xidhiidhiyuhu ma aha midka markii la xidhiidhiyana dadka xidhiidhiya marka la gooyana gooya. kaasi xidhiidhiye ma aha. kaasi waa nin wax dadka ka beddelanaya waaye. haddaad ii siisana waan ku siin, haddaad ii xidhiidhisana waan ku xidhin, haddaad ii goysana waan ku goyn. taasi waxa weeye waxbaad ka beddelanaysaa dadka. mukaafi' baa la yidhaahdaa. mukaafi'u waxa weeyaan wixii loo galay buu ka abaalgudayaa. kaas ma aha. laakiin waasilka iyo xidhiidhiyaha rasmigii waxa weeye markii la gooyo yuu dadka xidhiidhiyaa. qaraabadiisii marka la gooyo ama ay goyso buu isagu xidhiidhiyaa. nin baa nabigeenna u yimi sal alla alay wasalam kama fii saxiix albukhaari kadalika fii saxiix albukhaari min xadiidi abi hurayra. wuxuu yihi rasuulka ilaahayow, qaraabaan leeyahay, qaraabadayda waan xidhiidhiyaa weyne iyaguna way gooyaan. qaraabadayda waan wanaajiyaa iyaguna way xumeeyaan. qaraabadayda waan u dulqaataa dhibaatooyinkooda iyaguna xumaan bay igula kacaan. nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam, saad sheegaysa hadduu arrinku yahay waxay ka dhigan tahay sidii adiga oo dambas kulul cunsiinahayoo kaley ka dhigan tahay. sidii adigoo dambas kulul waraabinahayoo cunsiinahayoo kaley ka dhigan tahay. adigana xagga ilaahay mid kuu hiiliyo kaaga hiiliya ka waayi maysid inta aad arrinkaa ku dul sugan tahay. xagga ilaahay baa lagaala jiraa,
xagga rabbi baa lagaa garab istaagayaa oo waa lagaaga hiilin xumaantooda ayagana dhibka ay samaynayaan uga jawaabaynin waa wax ayaga dhibku ku soo noqonayo sidii dambas kulul iyagoo cunayo kale ka dhigan yihiin buu nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam u fiirso muxuu ku helay in xagga ilaahay laga garab istaago oo naasir iyo hiiliye looga soo diro calashaani wax weeye dadkii xumaantay kula kacayeen kama ficil la qaadanayo xumaantii wanaag buu ku bedelayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qodobka labaad cidda ku qadisay cid baad ka mudnayd in wax ku siiyo ama waad u baahatay waa ku qadiyey waad martiday waa ku qadiyey waad u baahatay waa ku qadiyey asagii baa kuu soo baahday ha qadinin ha ka ficil la qaadanin buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ka kor noqo ka kor uga kac isagoo kale ha noqonin kor uga kac isagoo ku xumay isagoo ku qadiyey waa macno weyn yaa sakari kara waay yaa awoodi kara wuxuu nabigu yidhi sal alla alayh wasalam cidda ku dulmidayna cafi waa lagugu xadgudbay naftaada cirdigaaga xoolahaaga mumtalakaadkaaga waa lagugu xadgudbay waa lagu dulmiyey ha ka ficil la qaadanin ha dulminina cafi iska saamax iska daa buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaad iska cafido waa martabada dhexe markii xumaan lagu geysto 3 martabo way kala fiican yihiin midii waxa weeye intii lagu geystay inaad geysatood ka goosato waad heli kartaa rukhsa waay waana meelaha diinteennu ay ka tahay waaqici ka tahay aadamahani mahmaa kor in loo qaado la isku dayo waa bashar waana bini aadam dabaa'ic waxaa jirta haysata inuu aargoostuu rabaayo waa ficilaysan yahay sidaas daraaddeed waa in loo banneeyo ugu yaraan wixii lagu sameeyey inuu goosto wajazaa'u sayi'atin sayi'atun miluhaa intii lagugu sameeyey waad samayn kartaa waad ku samayn kartaa laakiin ziyaado maya taa way kuu furan tahay qodobkaa waxaa ka fiican ama arrinkaa ka fiican oo ka sarreeya in aadan ka aargoosanin kana goosanin eed iska cafidood iska saamaxdood ka jeesato faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ruuxii cafiya oo islaaxiya alla wuxuu yidhi ajirkiisa ilaahay buu ku leeyahy miskiinkan kugu xadgudbay waxba kuma lihi ajirkaagiiba ilaahay baa la wareegay adiga inaad makhluuq wax ku yeelato iyo inaad ilaahay wax ku yeelato rabbi korkiisa ajirkaagu ahaado kee kuu roon maxaa ku daba dhigay ilaahay baaba agtaadu yaalla waxa ilaahay bixinaya miisaankiisa waxa saaran iyo abaalgudku ku siinaya makhluuq ka heli maysid sidaas daraaddeed fa ajruhu cala allah ilaahay baad ku leedahay ilaahay baa qaaday marka cafi si ilaahay kuu siiyo waxaa ka sii fiican martabada nabigu tilmaamayo sal alla alay wasalam oo ah inaabad kii ku xumeeyeyba wanaag u samayso kii ku xumeeyeyba inaad wanaag u samayso waana tan nabigu ku xijiyey sal alla alay wasalam wa axsin man asaa'a ilayka ruuxii xumaan kugu sameeyey wanaag u samee yaa subxaana allah yaa awoodi kara waay dad badani sax inay iska dulqaataan oo iska sabraan way dhici kartaa inay iska cafiyaan oo iska saamaxaanna waa dhici kartaa laakiin cid aad u ciilaysan tahay oo dhibaato kuu geystay oo ku dulmiyey ood u xanaaqsan tahay inaad haddana ixsaan u samaysood gacan ku yeelato yaa kari kara saas daraaddeed baa waa hadyiga iyo dhaqankii ambiyada iyo sidiiqiinta waay ambiyada ilaahay uu soo diray iyo rususha qur-aanka markaan akhrino ayagoo dadkan ay u yimaadeen doonaya inay badbaadiyaan naar ka badbaadiyaan hadh iyo habeenba u soo jeeda masaalixdooda adduuniya aakharaba ka shaqaynaya bay haddana ambiyadii caayayaan iyo aflagaadaynayaan laynayaan ciqaabayaan ambiyadiina kama daalayso inay soo jiidayso oy u dhawaaqayso oy khayrkiiyo wanaagga ugu yeedhayso ayaguna ixsaan bay u wadaan
qoladana xumaan bay kula dhaqmayaan laakiin anbiyadu maxay sameeyeen siddiqiintu xumaantoodii bay wanaag kaga jawaabayaan martabada sare baa marka leynoogu yeedhaya haddaad bini aadan tahayna waxaadan gudbi karin wuxuu yahay haddaad aargoosanayso ha ka siyaadin intii lagugu sameeyay dulmi weeye markaas bini aadan baa too intaa waa lagu ogolyahay ka fiican iska saamax ka sii fiican ihsaan ba u sameeyo wanaag u sameeyo الله وحده تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة حالة حن يمد ونكسن مسنا ادفع بالتي هي أحسن حمان تلقوا لك عي اللقوا سمي واحد كربتا كجهرتك كجت شوابتا مد أقفي عن بالتي هي أحسن هذا كجت شواب محد عي نتيجة وات فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم kii ku xumeeyay markaad wanaajiso cawdownimadii uu shalay ku qabay waa ka baxaysaa wuxuu ku noqonayaa saaxiib aad kuugu dhow لأن قلوب بني آدم كوح لغو كسبض وحا أقوى نكسن إحسانك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم آدمها إحسان أصمي سئب قلبي قوضوها نطو كأنه ولي حميم صاحب دو كون قنيا لأن آدمه مركو حمان سميو وناقلو قد شواب أغيران واحد يحيحيا واسكو حشانيا ورصيدانات سمي سيدنا واللغو سمي وحساب تميا كدبنا واسبدليا إن به ساتكو وينانيسا واحد نقونيسا روح ضي شمودا صاحبه كل نقونيا وكوكسو دوانيا كأنه ولي حميم لكن يا هلي كرواي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الرنكاسي سيدو أدق يهي وددكودن أيسن وذا قاري كرين أيا إلهي تلماما وحيد إلا لما كلن سيو لما نسيو أرنتا إيدا إلا ددك صبرا مويه لما السيو لما كلن سيو إلا الروح ليف وين أصاحب موياني نصيب وين روح له أيا دقن كاسكله وتقرن كرتا مركا إني درجة سرطها لكن آدمها إلهي وحسيي أود هدو استعماله إلهي نكاشده ما يلبدر وقاركه حديث الجملة وقدم بيس النبي أنه صلى الله عليه وسلم حقك هذا الأرض نفط هذا كركيده بها هذا محل جوده هدي لقى حق ليه أو لقى جر ليه نفط هذا كمر خاتك قراء هيس جيتشنين هيس أتكينين هإنكرين يا قد شعد تشوج مع جني ماذا ده هدي حق لقى ليه هو نفط هذا لقى جر ليه هي نفط هذا كمر خاتفر ويخرجنا هي لكن حق الرع هذا خرج هذا قر آيات في سورة النساء كتيرته حتى قالوا هذا الكستو مرتل الراديين أيوين مرتكة قيمة بدن عدالة إلى جامعة دواوين أدون كهورتي سايكو قرين بورك جامعة لقى سوقلي إلى إيكو قرين مرتكة قيمة بدن عدالة مركل اللي هذا يسويه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلهي درتي أمر خاتفرا ولو على أنفسكم نففيالكين كرت وضبها نفط هذا كمر خاتفر أو الوالدين لبضا كل شيء كركوضا كمر خاتفر والأقربين إحدتك حكتد أداء كركوضا كمر خاتفر فقيرك وفقير هو إحنن غنينا إسقى وحيستو إسكب حنكر هو إحنن حقا ميشو مرض وقل كونا هذا قر هجرم مرن سكسته هو قرار يا هلي كروه بلادو سويدي هذا ما هدي انت اللي جهلي لها الله اسمها هرديين هذا ما انت هدي اللي اسكهلي اللي جهلي لها دباتها بمتمادين لكن مشكلة وحي كأبو رنتهي إن أن لك لقر قادنين أو لسو تنازلين أو معنقق نبي إسقيتشن هي حقي الله إنكرو عندها لقى اللابت حقك هذا الكركاق بها هذا النفط هذا كركي هذا قل الحق ولو كان مرا
ومعاني ووين وآذو قيمة بدن وآد إسلاده هاي وحا لقاها الله يمن ملائك با وحا توجيهات كان للصينة يمن ملائك با آدم السيء وقصر وبكرتا وحي لها النوعاسة لكن حقيقة وحي تهي كلما بني آدم كددالو نفتي ستربييو ددال قليو اسكد يا إنو لي مادو إلهي ووافجين يا كربو أكعيا يعني يربو أكبعيا كدمنا وحقار يا درجات أصريا لأن معاني النبي قو إن أمر صلى الله عليه وسلم هديت هاي وحن لفلين كرين ومستحيل دينتو إن ما أمرتين بل والله ضبقي وأنبياء دي بعد ضبقي والصحابة دي بعد ضبقي وأمد جيل الشيدي سرائن بدنو كم إذا ضبقي ومعاني اللي ضبقي كرم ما أنت هدين نصميننا شكي ما لها مشاكل فربضنو إنا هي ستواحل اسم يسا خلافات كان دقال لدن معان ققني مدن إسلينتن ديق دادانيا اسخرب كان وحن أردن نفتي حميد أو أن للتربيينين أو لقى أمر قاطي أو للراعي هي معاني دا شريعة إنو شيكتي أو لقرم مري با وحن أردن كإيمانيا سيداس درادد من اجتهد وجد روحي ددال واهلا ومن يصبره الله روحي صبر إسكر رادينا إلهي واسيا روحي ددالنا من هذا القوستا إلهينا أدونك الددال كيسا وح بدن بكوا فتشيا أن اسكت دينو أخلاق قيمها بدن إنا وح بدن فلين كرنو ضبقي كرنو لا إيمان كرنو بإذن الله تبارك وتعالى سيئن درجات كاسر أوقارنا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك حسن الخلق ونعوذ بك من سيء الأخلاق يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك